waxay sameeyeen nimankan oo burcadan internetka weerar ayay ku qaadeen dhowr waaxood oo ka mid ah federal governmentiga iyo sidoo kale macnaha private companieska shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo hay'ad dawladda federaalka marka federal agencieska iyo private companies ayay weerar ku qaadeen nimankan oo burcada internetka waxaana ka mid ah wasaaradda maaliyadda wasaaradda ganacsiga pentagonka DHS National Institute of Health iyo gaashaandhigga iyo tan caafimaadka iyo kuwa gaarka loo leeyahay intaas oo dhana ka mid ahaa weerarkaana waxaa la ogaaday mar oo nimankan oo burcadka internetka ay weerar ku qaadeen shirkad ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee sugta amniga internetka Maraykan saldhigeeda uu yahay taas ayay weerar ku qaadeen markaasaa la ogaaday weerarkan ku socda qeybaha kala duwan ee dowladda Maraykanka wuxuuna bilowday weerarkan March 2020 ayuu soo bilowday wax oo hadda macnaha bilowday ma aha hadda un baa la ogaaday macluumaad badanna lama hayo waxyaabaha macluumaadka ay dadkan ay jabsadeen ama ay xadeen ilaa iyo hadda wax badan oo laga ogyahay malaha waayahay marka Dr. Ismaaciil weerarkaas aad sheegtay in lagu qaaday hay'adaha dawladda federaalka Maraykanka bilooyinkana socdo oo mar dhow la ogaaday baaxad intee la eg ayuu leeyahay dhaawac intee la eg ayuu gaarsiin karaa dawladda federaalka ee Maraykanka yaa saqaaday weerarka baaxadiisa ilaa hadda lama oga laakiin waa baaxad really aad iyo aad u weyn waayo hay'ado badan arrintan ay saameysay marka weli baaridaa socota oo FBI-da iyo intelligence community-ga oo dhana daba taagan oo arrintan hay'adaha sirdoonka oo dhan baaraya marka taas waa saas sidoo kale weerarkan dadka looga sheekaysan yahay kolley ilaa hadda news outletska waxa ay sheegayaan waa ruushka ayaa la leeyahay waa looga sheekaysan yahay oo arrintan ka dambaysa marka waa sidaas waayo ugu dambeyntii maxaa laga yaabaa oo tallaabo ah oo ay qaadan doontaa dawladda Maraykanka mar haddii la leeyahay xogo xasaasi ah ayaa loo soo disay oo la xaday wallahi waxay noqonaysaa inay isku dayaan hadda tallaabooyinka ugu horeeya ay qaadeen waxaa ka mid ah in la joojiyo softwareadii ama productigii shirkadan hadda dhibka uu ka dhacay oo lasoo maray adeegyadii la isticmaalayay oo dawladda ay isticmaalaysay in la joojiyo oo disconnection in la sameeyo taasaa hadda lagu dhawaaqay tan labaadna tallaabada labaad socotana waxaa waaye baaritaan adagaa socda oo lagu macnaha ogaanaya saameynta weerarkan inta uu la egyahay wixii markaas ka dambeeyana kolley waxaa waaye cashar ayay u noqon doontaa dawladda Maraykanka oo waxayna isku dayi doonaan kolley inay adkeeyaan amnigooda dhinaca internetka shirkado badan oo private ah ayaa xitaa isku dayaya inay caawiyaan dawladda waxaa ka mid ah Microsoft oo la shaqaynaysa dawladda si ay macnaha si arrimahan macnaha xal waara looga gaaro laakiin weerarkan oo internetka waa weerar socon doona oo wuxuu bedelay dagaalkii qaboobaa oo waagii hore wadamada ay isku qaadi jireen kii unbuu bedelay oo hadda waa cyber war marka waa nooc ka mid ah dagaalkii qaboobaa marka waana sii socon doonaa wax hadda istaagi doonana ma aha